sababtoo awoodda ay hadda Axmed Madoobe ku soo qabanayaan waa mid kale oo isku waxaysan haddii maanta anaga soo qaban karaan ma xasha waa soo qaban karaa in dad badan la yaab ay ku noqotay warbaahinta caalamka si weyn ayaa loogu falanqay in laba dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dowlad xubnaha ka ah ay midba madaxweynaha soo qabtay arrintaas soo lagama wanaagsan inaad ka baaqsataan yaa bilaabay kuydii yaa bilaabay dowladda federaalka bilaabay soo waan gartaa aqliyadda ku keeneen heer soo qabtay horta inayna iyagu ismiisaan awoodda inay garanayeen inay asalto taas ka daawarta وحبسي مخو ما أنت ورقة عن يسوي بحذي لا ما أنت وحبسي إن دولة فدرالية الصومال إكو قوة مخصوص بشيء. هذا يو هذه وجالة بعيال لي. أنا صاغبتها كده أنا يعني صاغبتها. هاي. وكسا أنا والله أنا عاكش غيري هو عاكش غيري أنا يعني. هاي. marka waxaad leedahay wax cabsi oo ay kugu hayso malahan in lagu soo qabto in soo qabta door sharciga weyn garanaynin siyaasaddan isku haynaa criminal ma moogta haday criminal noqoto iyaga criminal oo ay ka shaqeynayaan oo maanta dadkii fiiri marka hadda dad la cuna qabataynayo oo ciqaab wadareed loo samaynayo oo arkaysa shalay xildhibaano laga celinayo garoonka oo maanta arkaysa garoonka doolow iyo baar dheere iyo garbaharey iyo la leeyahay cid kama degi karto oo la leeyahay Kismaayo garoonkeeda xagga ay xagga looga bixi karo oo garoonka Kismaayo la leeyahay diyaaradda jaadka kaliya Nairobi ka iman karta dalagska jaadka la keeni kara oo intaas oo dhibaato lagu oo waliba qol yar intii lagu soo heysay garoonka Muqdisho la leeyahay adiga yaa tahay xageed ka timid iyo maxaa tahay la weydiinay waxa ka dhiman lagu soo inaa ma kaasa criminal oo in sharci la hor keenaa wax la weydiiyaa mise waayo hor sharci waa cid qabanay maanta cid sharci qabanayay waa cid shalayna lahayd anagu dad waxba waxaynayno maanta xildhibaanadiina sameynay waxa arti ku sameynay shacabka u daahayaan waay ya tamarka waa su'aal aan isleeyahay cid criminal ee maxkamadda u baahan tahay in la saaro waa in loogaa